saaxiibayaal ku soo dhawaada muuqaalkeena maanta. Bilowga filimka waxaan aragnaa laba mas oo midna cad yahay midna cagaaran yahay. Labada masna waxay ahaayeen kuwo walaalo ah, waxayna u muuqdaan kuwo dhalinyaro ah, balse waxay jiraan 1000 sano iyo ka badan. Maska cadna waxaa lagu magacaabaa Suushaan. Sidoo kalena labada mas waxay ahaayeen kuwo awooda inay la qabsadaan habnololeedka aadanaha. Maalin maalmaha ka midana labadii gabdhood ee masaska ahaa waxay duurka ku arkeen wiil lagu magacaabo Shiyaan, kaasoo dhadhaminaya ubaxyada duurka ka baxaya. Labadii gabdhoodna waxay aad ula yaabeen inay bilaadanku ubaxyada cunaan. Dhanka kale Shiyaan iyo asxaabtiisa waxay meeshaan u yimaadeen inay raadiyaan geedo madaawaad ah. Intaa kadibna wuxuu kaligiis horay ugu sii socdaa dhanka buurta. Gabadhii maska cagaaran ahaydna waxay ku soo noqotay sideedii hore, kadibna meesha ayay isaga tagtay. Markuu wiilka ayada arkayna qarka buurta ayuu ka dhacay, asagoo ku dhacay webi meesha ka hooseeyay. Gabadhii maska cad ahaydna markay arrintaa aragtay waxay u damqatay Shiyaan, waxayna dareentay in laga gardaran yahay. Intaa kadibna waxay aaday dhanka webiga ayadoo isku ekaysiinaysa bilaadan. Kadibna waxay ugu tagtay gunta hoose ee biyaha wayna soo badbaadisay. Markay caawisay kadibna way iskaga tagtay asaga. Dhanka kale Shiyaan markuu soo toosay wuxuu arkay saaxiibadii oo ku xoonsan asaga. Intaa kadibna wuxuu saaxiibadii weydiiyey meesha ay aaday gabadhii noloshiisa badbaadisay. Saaxiibadiina waxay asaga ugu jawaabeen inaysan arkin wax gabar ah, waxayna sidoo kale u sheegeen waxan uu sheegayo inay tahay mala'awaal uu asaga sawirtay. Dhanka kale isla maalinta waxaa la rabay in xaflad dhaqameed lagu qabto tuulada. Wadaadka macbadka iyo saaxiibadiina waxay isku raaceen goobta ducada, waxayna sidoo kale ka shaki qabeen inay ducada soo weerari karaan vampire-iska. Intaa kadibna Shiyaan wuxuu u yimid ayaga asagoo sida geedihii madaawaadka ahaa. Dhanka kalena gabadhii maska cad ahayd ee Shuusaan ee la waayay markii ay Shiyaan caawisay kadib. Intaa kadib waxay bilowday inay si joogto ah uga fikirto asaga, waxayna bilowday inay si tartiib u jeclaato Shiyaan. Intaa kadibna walaasheed ayay u timid, waxayna u sheegtay inay doonayso inay mar kale la kulanto wiilka. Sidaa darteedna labadii gabdhood waxay go'aansadeen inay aadaan xaflad dhaqameedka ka dhacaysay tuulada. Markii habeenkii la gaarayna wadaadka iyo kooxdiisa waxay si buuxda u diyaariyeen ducada, sababtoo ah wadaadku wuxuu rumaysnaa in makhluuq kale ay mar walba soo weerari karaan dadka tuulada ku nool. Intaa kadibna gabadhii maska cagaaran ahayd waxay xafladda kula kulantay gacanyaraha wadaadka, sababtoo ah asaga aad ayay uga heshay, waxayna rabtay inay la saaxiibto asaga. Intaa kadibna wuxuu gabadhii u sheegay inuusan hadli karin hadda, sababtoo ah wuxuu meesha u joogay inuu qabto makhluuqaadka halista ah ee meesha soo weerara. Mana ogeyn gabadhan ka doonaysa inay la saaxiibto in ayada xitaa ay tahay bahal, balse waxay si lama filaan u aragtay Shiyaan. Kadibna waxay aaday asaga. Intaa kadibna waxay Shiyaan u sheegtay in walaasheed ay jeceshahay asaga, sidoo kalena ay doonayso inay la kulanto. Wiilkii Shiyaan ahaana wuxuu ayada u sheegay inuusan aqoonin walaasheed, sidaa darteedna wuxuu ka diiday inuu la kulmo ayada. Intaa kadibna gabadhii maska cagaaran ahayd waxay isku tuurtay webiga, kadibna waxay asaga ka codsatay inuu doontiisa ku qaado si ay walaasheed ugu tagto. Shiyaanna wuu ka ogolaaday arrinta, wuxuuna geeyey meeshii ay doonaysay. Shuusaanna markay aragtay Shiyaan, aad ayay ugu faraxday aragtidiisa. Balse markay labadooda wada kulmeen, Shiyaan wuxuu ayada u sheegay inuu jecel yahay qof kale. Qofka uu jecel yahana uusan garanayn, balse ay badbaadisay noloshiisa asagoo webiga ku qarqoomay. Shuusaanna markay hadalkaa maqashay waxay ogaatay gabadha uu jecel yahay Shiyaan inay ayada tahay, sidaa darteedna waxay asaga u sheegtay inay tahay gabadhii uu raadinayay. Waxayna dib u xasuusisay markii ay badbaadinaysay si ay ugu xaqiijiso inay tahay gabadha uu jecel yahay. Intaa kadibna Shiyaan wuxuu xaqiiqsaday inay tahay gabadhii uu jeclaa. Dhanka kalena gacanyarihii wadaadka wuxuu arkay bahalo khatar badan, wuxuuna si geesinimo leh oo la dagaalay bahallada vampire-iska ah. Intaa kadibna waxaa asaga dhaawacay mid ka mid ah bahallada, sidaa darteedna wuxuu u yeertay wadaadkiisa si uu u caawiyo. Wadaadkiina markuu meesha yimid wuxuu bilaabay inuu la dagaalo bahallada, asagoo gubaya. Ugu dambayntiina wuxuu laayay vampire-iskii. Maalintii xigtayna Shuusaan waxay aaday guriga Shiyaan. Dhanka kale Shiyaan wuxuu aad ugu farxay inay gurigiisa ku soo booqato. Intaa kadibna labadoodii waxay bilaabeen inay isla noolaadaan. Maalin maalmaha ka midana way isguursadeen. Dhanka kale maalintii ciid dhaqameedka wuxuu bahal qaniinay wadaadka saaxiibkii, sidaa darteedna wadaadka saaxiibkii wuxuu isku beddelay vampire. Intaa kadibna aad ayuu u xanaaqay asaga, sababtoo ah wuu isbeddelay. Haddii uu bahal noqdona wuxuu khatar ku noqon doonaa dadka tuulada ku nool. sidaa darteedna meel cidla ayuu aaday si uu isku dilo.
intuusan isdilinna gabadhii maska cagaaran ahayd ayaa u timid asaga. intaa kadibna waxay asaga weydiisay sababta uu isku dilaayo, waxayna ku amartay inuu joojiyo arrintan. wuxuuna ayada ugu jawaabay inuusan doonayn inuu noqdo bahal, sababtoo ama doonayn inuu waxyeeleeyo dadka, sidaa darteedna wuxuu doonaya inuu isdilo. gabadhiina markay hadalkiisa maqashay waxay xaqiiqsatay in hadalkiisu dhab yahay. intaa kadibna waxay tustay carabkeedii maska ahaa, kadibna waxay u sheegtay inuusan welwelin haddii uu noqdo bahal, waxayna sidoo kale u sheegtay ayada xitaa inay bahal tahay. dhanka kale waxaan aragnaa wadaadkii oo tuulada gaaray. intaa kadibna wuxuu la kulmay dad badan oo isku beddelay bahallo, waxayna dhib badan ku hayeen tuulada, cudurkana aad ayuu u sii faafayey. sidaa darteedna Shiyaan wuxuu ayaga siin jiray geedo madaawaad ah si uu noloshooda u badbaadiyo. dhinaca kale Shuusaan waxay ka cabsi qabtay inay soo weeraraan vampiriska dadcunka ah, waxayna ahaayeen kuwo awood badan oo aad u khatar badan. suurtagalna ma ahayn in geedo yaryar lagu daaweeyo cudurka tuulada ku faafaya. sidaa darteedna Shuusaan waxay keentay madaawaad lagu daaweyn karo dadka jiran si ay u badbaadiso nolosha ninkeeda iyo dadka tuulada ku nool. dhanka kale Shuusaan waxay saaxiib la ahayd Dooliyar. intaa kadibna Shuusaan wuxuu weydiiyey waxa ay meeshaan ka qabanayso, sidoo kalena wuxuu u sheegay in daawadan haddii ay dadka siiso ay nafteeda khatar badan u galayso, waxayna awooddeeda ka dhigi doontaa mid daciifa. balse Shuusaan arrintan waxay u samaynaysay inay caawiso ninkeeda iyo dhammaan dadka tuulada ku nool. intaa kadibna Shiyaan wuxuu dadkii jiranaa uu siiyey daawadii, waxayna si tartiib tartiiba u bilaabeen inay soo bogsadaan. wadaadkiina markuu arrintan arkay aad ayuu u yaabay, sababtoo ah wuxuu rumaysnaa inaan cudurkan wax daawo ah loo heli karin marnaba. balse markuu arkay dadkii oo caafimaaday, wuxuu Shiyaan weydiiyey cidda ka caawisay diyaarinta dhirtan. Shiyaanna wuxuu asaga ugu jawaabay in xaaskiisa ay ka caawisay diyaarinta daawada. intaa kadibna wadaadkii wuxuu xaqiiqsaday Shiyaan naagtiisa inaysan ahayn bilaadan caadiya, ayna tahay makhluuq kale. sidaa darteedna wadaadkii wuxuu Shiyaan siiyey midi sixira oo awood badan. kadibna wadaadkii wuxuu aaday Shuusaan. intaa kadibna wuxuu ayada weydiiyey sababta ay iskaga dhigayso bilaadan, ayna u guursatay qof bilaadana ayadoo bahal ah. sidoo kalena wuxuu weydiiyey sababta ay ugu dhex nooshahay dadka. intaa kadibna wuxuu niyadda ugu dejiyey ayada inuusan waxba oranayn maadaama ay tahay bahal wanaagsan, balse wuxuu ka codsaday inay iskaga tagto Shiyaan, haddii kalena uu dili doono. kadibna wadaadkii goobta ayuu isaga tagay. habeenkii markii la gaarana Shiyaan wuxuu guriga yimid asagoo dhala khamri ah wata. sida caadiga ahna masasku waxay ku sumoobaan khamriga, balse Shuusaan laftirkeedu waxay ahayd mas. intaa kadibna Shiyaan wuxuu ayada ka codsaday inay la cabto khamriga. markay cabitaankii cabtayna waxay bilowday inay isbeddesho xaaladdeeda, marba marka ka dambaysana way ka sii daraysay. intaa kadibna waxay isku soo xirtay qol. Shiyaanna wuxuu u qaatay inay ka xanaaqday asaga, wuxuuna sidoo kale weydiiyey sababta ay sidaan ula dhaqmayso. intaa kadibna Shuusaan way iscelin weysay, waxayna noqotay mas. sidoo kalena isla waqtigaas waxaa meesha yimid wadaadkii, wuxuuna doonayay inuu qabto ayada. intaa kadibna wadaadkii iyo ayada waxaa dhex maray dagaal. dhanka kalena Shiyaan wuxuu midi sixira ku dhuftay maskii, mana uusan ogayn maska cad inuu yahay xaaskiisii oo isbeddeshay. markii la dhaawacay kadibna Shuusaan goobta ayay isaga tagtay, waxayna aaday walaasheed. intaa kadibna waxay walaasheed u sheegtay in lagu dhuftay midi sixira, sidaa darteedna aysan awoodin inay mar kale isku beddesho bilaadan, weligeedna waxay ahaan doontaa abeeso. intaa kadibna Shiyaan wuxuu wadaadka weydiiyey wax ku saabsan xaaskiisa. wadaadkiina wuxuu asaga u sheegay in maskii caddaa uu arkayay ay ahayd xaaskiisa, sidoo kalena wuxuu u sheegay in maskaas uu guursaday ayadoo jirta 1000 sano. Shiyaanna aad ayuu u naxay markuu ogaaday xaqiiqada. sidoo kalena dooligii Shuusaan ayaa Shiyaan u sheegay in xaaskiisa ay nafsadeeda khatar u gelisay siday caafimaad u heli lahaayeen dadkii cudurka qabay, waxayna arrintaa u samaynaysay asaga dartii. dawadaana in la helo mar kale aad ayay u khatar badan tahay, sababtoo ah meeshii laga helaayay waxaa qabsaday vampiris aad u khatar badan. intaa kadibna Shiyaan wuxuu aaday meeshii, wuxuuna isku dayayaa inuu meeshaa ka soo helo geedo madaawaad ah. dhanka kalena Shiyaan waxaa hareereeyay hoos bahal ah. dhammaan asxaabtiisa iyo wadaadkana waxay isku dayayaan inay badbaadiyaan asaga. dhanka kalena dooligii yaraa wuxuu qaaday geedkii madaawaadka ahaa, wuxuuna u geeyey Shuusaan si uu nafsadeeda u badbaadiyo. haddana mar kale waxay awooddaa inay iska dhigto bilaadan. markay caafimaadayna waxay weerartay wadaadkii iyo saaxiibadii.
waxayna fahantay cidda ayada iyo Shiyaan kala fogeynaysa inay tahay wadaadka. intaa kadibna Shiyaan waxay geysay meel ammaan ah, waxayna asaga weydiinaysaa inuu fiican yahay, balse wuu xasuusan waayay ayada, wuxuuna awoodi waayay in xitaa uu xasuusto xaaskiisa. intaa kadibna Shuusaan waxay ku laabatay wadaadkii, waxayna weydiisay waxa uu ku sameeyay ninkeeda Shiyaan, taasoo sababtay inuu iloobo ayada. si kastaba ha ahaatee si dhaqsiyo leh ayay xasuustiisa dib ugu soo noqonaysaa, wuxuuna si tartiiba u noqonayaa sidii hore. dhanka kale Shuusaan waxay ahayd mas awood badan, wadaadkiina wuxuu ku guulaystay inuu xakameeyo awooddeeda, wuxuuna ayada ku xabisay guri qadiimi ah. meeshaas ayayna ku xirnaanaysaa weligeed, suurtagalna uma aha inay meesha ka baxsato. dhanka kalena Shiyaan noloshiisa oo dhan wuxuu ku qaadanayaa guriga bannaankiisa, asagoo sugaaya inay mar un dib ugu soo laabato xaaskiisa. dhanka kalena wadaadka saaxiibkii wuxuu noqday bahal, balse dadka waxba yeeli maayo, wuxuuna noloshiisa inta ka dhiman la qaadanayaa maskii cagaarnaa. filimkeennina meesha ayuu ku soo dhammaaday. haddii aad nala soo gaartay dhammaadka muuqaalkan, fadlan muuqaalkeena laag saar, sidoo kalena channelkeena ku soo biir oo subscribe dheh. waad ku mahadsan tahay la joogistaada.